war haddana soo gaadhay ayaa sheegaya in gabadh Soomaaliyeed ay u geeriyootay jacayl. sagaalkii Agosto 2025 magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa waxaa gilgilay war ku saabsanaa geerida Fartuun Cabdi Maxamed oo ahayd gabar 23 jir ah oo ku caan baxday daacadnimadeeda iyo qalbigeeda jacaylka hayay. Fartuun ayaa la xaqiijiyay in ay u geeriyootay kadib muddo bila ah oo ay la daalaadhacay xanuun la sheegay in uu ka dhashay niyad jab jacayl. Ehelka Fartuun ayaa sheegay in dhowr bilood ka hor ay gashay xiriir jacayl oo ay aad ugu riyoon jirtay balse nasiib darro ku dhamaaday si lama filaan ah, taas oo keentay murugo iyo walbahaar joogto ah. saaxiibadeed oo ka hadashay ayaa sheegtay in Fartuun ay bilihii u dambeeyay ku jirtay xaalad maskaxeed oo aad u adag, ayna marar badan sheegtay in qalbigeeda uusan sii wadi karin nolosha jacaylka isaga la'aantiis. hooyadeed Maryan Maxamuud ayaa tiri waxaan u arkayay in ay weli yar tahay oo ay ka soo kaban doonto, laakiin murugadii ay la kulantay waxa ay noqotay mid ka xoog badan oo aanay qaadi karin haba yaraatee. maalin walba waxay xasuusan jirtay jacaylkii ay weyday. sidoo kale waxaa idin soo gaarsiinayay aniga oo libaax barqiya ah.